Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada maantii wararka aynihin. Oromo kusoo duushay dowlad deegaanka Soomaalida oo dagaal xoogan kala dhex socday ilaa shalay ilaa saaka ilaa xalay oo dhan socday ay kiliyo police-na meesha isku haysteen ayaa wararka nagu soo gaaraya la sheegaya inay dhimasho badan iyo dhaawac badan labada dhinac ay soo gaartay kuwaas oo ay marka ayada liyo police-kii ay ka laftooda la suuqay dhinaca kalena ay ka laftooda dhimasho badan iyo dhaawac badan loo geystay. Waxaa kaloo na soo gaarayaan inay markaa ay shalay ahayd ilaa daraad ay dagaalka u socday ayna damcaan oromada dagaalka soo qaaday inay markaa ayada ay ummadda Soomaaliyeed rabeen inay markaa ka barakiciyaan meeshii degnaayeen una soo haweysteen inay markaa ayada ay qalqal geliyaan oo dhulkooda ay ku markaa dhulka Soomaaliyeed ay rabaan inay kiciyaan oo dadkii meesha degnaa ee dagaal ku soo qaadeen kadibna ay liyo police madaxa isgashadeen kuwaas oo dagaal culus dhex maray. Hadda ilaa waqtigan wada hadlaynana dagaalka wali inuu socdo ayaa nagu soo gaarayaan wararka dhimasho badan iyo burbur badan ba labada dhinacba u geysteen inkastoo oo dhinaca maleeshiyaadka oromada ee dagaalka soo qaadeen ay ka dhimasho badan lagu sheegayo xaggooda dhinaca liyo police-kana lamaba yareystaan maadaama dagaalku dagaal culus u ahaa wax hadda xaqiiq oo marka ayada dhimasho tira kooban ma jirto laakiin wixii nagu soo gaaraya in labada dhinacba dhimasho badan ay soo gaartay iyo dhaawacyo badan labada dhinac ay jiraan ayaa nagu soo wargaarayaan kale dagaalkii u dhaxeeyay beesha ogaadeen iyo beesha Mareexaan oo asaga laftiisa meel xun sii marayo oo sidii hadda wararka lagu soo gaarayaan beesha Mareexaan ay barakaceen kuwa oo la sheegayo in dagaalku uu ku bilowday inay markaa lagu soo dhex dhuuntay oo beesha Mareexaan lagu soo dhex dhuuntay oo maleeshiyad al-shabaab oo ka soo gudbeen dhinaca Soomaaliya oo dhinaca Ethiopia u gudbayeen iskula kulmeen marka ayada meeshii oo nimankii liyo police-ka dowladda u degnaayeen ay meeshii iskula soo kulmeen kuwaas oo qarax u beegsadeen marka ayada ahayd qaraxii oo dagaalku ku bilowday marka hore sidii wararka nagu soo gaarayaan dagaalku wixii bilaabay al-shabaab ay ahayd laakiin markii dagaalkii waa la soo falceliyay al-shabaabtii hadii waxay ku soo carareen dhinacii ay degnaayeen beesha Mareexaan lagama harin meeshii loogama harin beeshii waxaa marka ayada dagaal culus ayaa ka dhacay beesha Mareexaan hadii inay soo kala carareen deegaamo meeshii duur bay iska ahayd oo dadkii reer baadiyaha iska degnaayeen xoolo dhaqatada meeshii ay ku noolaan ay ahayd wayna ku soo dhex dhuunteen laakiin meeshii ogamay harin way soo raacsadeen ilaa ay ka soo gudbeen dadkii ay marka ayada Soomaaliya dhinacan u soo carareen laakiin meeshii ay ka laftoodii barakac badan dhib badan iyo burbur badan ay geysteen dhinaca dadkii Soomaaliyeed ee Mareexaan oo ay meeshii ay degnaayeen waxay sheeganayaan inay ahayn wixii loo jooday inay tahay ay kicidoodii misna Mareexaankii maadaama Mareexaankii marka hore ee hurguf dhex martay beesha ogaadeen cid ka mid intaas oo marka ayada sidii ay sheeganayaan ay ka laftooda ay marka Mareexaankii ay leeyihiin waxaana loogu soo dhuuntay al-shabaab waxaana loogu soo dhuuntay al-shabaab magaceedana lagu burburiyay al-shabaab magaceedana lagu laayay wixii loo marka ayadana si sheegayeen inay u soo dhuumanayeen ay ahayd wixii marka ay qabeen shaati oo qabiil ay ku dagaalamayaan dowlad ahaan marka ayadana sheeganayaan in la dagaalayaan argagixiso laakiin dagaalka sidoo u socday in ay ahayd in aarsi marka ayada loo aarinayo beeshii ogaadeen ee marka ayada ahayd meeshii dagaalku isku haystay beeshii Mareexaan laakiin dowladii iyo wararka naga soo gaarayaan dhinaca liyo police-ka waxay sheegayaan in ay dagaalkaas ay ugu jihaysteen mise u joodeen ay ahayd al-shabaab oo marka ayada cid iyo qof marka ayada shacab oo meeshii iska degnaa inay u joodin maadaama meeshii ay ahayd meel la degan oo dadka xoolo dhaqatada iska degan yihiin dagaalkii meeshuu ku kala dhaxmaray al-shabaab iyo marka ayada liyo police-ki inay marka kaliftay in dadkii ay ka laftooda hadii dagaal maadaama meeshii uu ka dhacay la iskuna haysto oo labada dhinacba xabada iyo marka ayada qaraxyo la isbeegsanayo inay ay ka cararaan oo xoolihii marka ayada ka cararaan uma cararaan dhinacaas iyo xuduudka Soomaaliya laakiin meesha hadda wax ka jira waxa waaye ay naga soo gaarayaan wararka liyo police-ka iyo dowladda dhinaceeda inay ay ka ceersanayeen ciidankaas oo jabhadaas oo ka soo gudubtay dhinacaas oo al-shabaab laakiin ay u joodin cid hablo misna cid Mareexaan ay u joodayna meeshii ay jirin dhinaca kale ogaadeenkii marka ay la dagaalayeen beeshii Mareexaan oo marka ay meeshii isku haysteen ayaa sheegeen in marka ay ayakii Mareexaan ay ahayd arrintan oo wax ay liyo police iyo wax ay u soo heelisan ay jirin heelisna oo uga baahneen liyo police oo ay iska reebi karaan beesha Mareexaan inta ay ka meeshii ay joogaan ee diyaar u yihiin beesha Mareexaan inay mar walba ay iska reebi karaan hubkii iyo marka ayada ciidankii iskaga reebi lahaayeen ay haystaan oo marka liyo police iyo dowlad gacan qabsi marka ayada dowlad taageero ee uga baahneen
inayna ku been fariintaan marka iyada say u sheegayaan beeshii mareexaan inay ku been fariinsanayaan marka iyada ay ogaadeen inay marka iyada loo soo isticmaalayo ciidankii iyo dowladdii, laakiin dowladdii iyo ciidankii waxay u socdeen sidii la sheegay dagaal oo marka iyadka al-shabaab oo kasoo gudubtay dhinacaas Soomaaliya, maadaama meesha dagaal badan looga hayo dhinacan Soomaalida kalena ay dagaal culusba ku hayaan oo beeshii mareexaan dhinaceeda iyo ogaadeenkii dhinacaas damceen inay u gudbaan dhinaca ogaadeenaya. laakiin inay marka iyada iska hor imaadeen dagaalo dhex maray meeshii hadee burbur badan dhex loo geystay xoolo dhaqatadii marka iyada ay laftooda la galaaftay, laakiin ay ahayn wax ay loola dan lahaa masana loo jooda ay ahayn oo marka iyada wixii lala dagaalamayay ay ahayd dhagarqabayaasha kasoo gudbeen dhinacaasi Soomaaliya oo marka iyada naftooda la cararayeen maadaama dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya ee dagaal culus kaga hayso in muddana la ceersanayay oona damceen dhinacaas inay u gudbaan, laakiin meeshii la isku helay meeshiina marka iyada ay laftooda in lagu burburiyeen marka ay kasoo carareen, taasna ay ka liftay in shacabkina ay laftooda dagaalkii meesha lagu galaaftay eena saas ku carareen. laakiin inay marka iyada loo joodin masana ayaka loo soconin dowladda way cadeysay diyaarna waxay u yihiin markasta inay difaacdaan wixii ayaka cid ahaan mise beel ahaan ogaadeen beesha ogaadeen iyo mareexaan bay isku dhaxgalaan wax marka iyada dowlad u taalo oo dowladda in xalas loo baahan waaye, laakiin dowladda inay u soo isticmaalayeen masana shaati dowladda la soo isticmaalo beel lagu la dagaalamaynin dowladda way cadeysay. wa calaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh.